أنا هو عبد القادر آل يوسف أنا من كل حزب الأمية وحن ما تشركا وقبتي جرائد إن كذا جوابه مو بدن وفرط بدن أو أنشوف لهاي أو حجبان كباش وقاي حكومته إسلام كانوا أيوة قاتين ومدي إنه وحن فكر كان خلدنا حجبان قايست باش على قتل برتمر كروح عدين بلهان أنا باش وبال بلارن وين فكر كان أحمد ياسين الله ما قبته أحمد ياسين هو حجبان كان صوت دورناي خرج كيجي وعكيده وقرناي وهو وكيل كيدود إنه وجود شيء لكن كموسى بحن كالنتيسي wuxuu kala gooyay xiriirkii dawladda iyo u dhaxayn lahaa beesha wakiil ka yahay gabay xilkii aan u dooranay wuxuu galay waxyaalaha aan loo diran oo ah eedayn iyo aflagaado uu ku hayo madaxda qaranka mar walba taasi waxa weey mid aanan la qabin beelahaan mid aanan aanu nagu matalin annaga beelahaan waxaan ku cadeynaynaa in beeshu ay tala ka yeelanayso midaysan aanu ahayn kaas kuna hadal afka beesha iyo afka uu ku hadlo wax saga u gaar ah xildhibaankii wuxuu galay inuu ku hor yimaado horumarkii iyo wax kastoo la qabto wanaagsan uu fadaxad ka dhigo taasi waxay noqonaysaa taasi waa keentay inaan ka jawaabno oo ka hadalno waxyaalaha uu ku jiro maanta beesha aad iyo ismaha beel xildhibaanku uu leeyahay laakiin xildhibaanku isaga beesha aad ka mid ah waa shakhsi ka mid ah beesha waana wakiil ay soo dooranay oo nagu jira garaa wakiilada ayuu ah laakiin wuxuu gabay wakiilnimadiisii marka maanta waxaan leenahay oo nu ka shirnay markaanu is aragnay waxaanu ka shirnay in aanu ka hadalno arkiisaas shalayto xildhibaanku beesha wuxuu ku hogaamiyay xisbi dhacaya oo wuxuu ugu soo galay shalay wuxuu ku hogaamiyay beesha wuxuu ku hogaamiyay xisbi dhacaya maantana wuxuu ku hogaaminayaa xisbi dhacaya oo wax aan jirin urura dhacayo aan jirin ayuu ku hogaaminaya marka hadduu noqday qandaraas le maalinba ninka sii dhacay qandaraas ka qaadanaya taadaro beeshu kaastaga uma xidhnaa mana aha ma taqaanaa in lagu yiraahdo war heedhi xildhibaankiini ba macaarade xaqiini waa weydeen xaq ayaga aan ku leenahay xukuumaddeeda iyo dawladdeeda aan ku leenahay muwaadinimo sideeda ayaan uga rabnaa anaga ayaan jidkeeda u marayna laakiin xildhibaanku nagu mato macaaradnimada anaga in marba urur dhacay iyo xisbi dhacay oo idinku hogaaminayo aragtidaasi qofku xor buu yahay inuu xisbigu doono ururku doono u galo maxaad idinku ku diidantiin inuu meel ileen inuu dhacayo inuuna dhacayn ma caddayn kartaan idinku maxaad ugu diidantiin inuu meel wanaagsan idin horseedo waxaan ugu diidanahay inuu meel noo galo isagoo noo tilmaamo hore ayuu noo lugooyo beesha uu lugooyo meel ugu xidho wixii hore ayaan ka haynaa inuu qabad la'aantiisii intaasna uu jiray wax qabad la'aantiisii uu jirtaa maalintan wax dan waa beesha uu matalayo u ah kamuu hadal manuu hogaamin kumana hogaamin wax wanaagsan waayo waxyaabaad leedahay waxaan dan u hayn beesha ayuu mar kasta ku hadlaa maxaad ula jeedaa maxay tahay waxaas balnoo sheeg waxaan ula jeednaa maanta waxaan arkaynaa isbeddelka dhacay waxaanu arkaynaa jidkii inoo dhismaya oo halkaas soo socda xukuumaddii uu 10 sano ku soo jiray rayaale dee 1 kilomitir inoo meedhsi markaa tii wax qabanaysay hadduu eel kala hor yimaado oo uu noqdo nin horumarkii nacab uu beeshiina magaceegi wato uu xildhibaan ku yahay miyaan markaa anugu ahayn shaabad xun waaye isaga idinka beel ahaan ma soo fadhiisiseenoo ma wada hadasheen 10 jeer ayaan soo fadhiisinay oo yeernay waxaan u geynay madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha isagoo beesha la socda islaadiinta waxaan u sheegnay xildhibaankii inaan soo qabanay oo lagu taqaanaayay uu la shaqeynay xukuumadda uu waxa wanaagsan horumarka iyo talaabada ku socda ee isbeddelka uu ka qayb qaato inuu beeshii xaqeegii la raadso in wixii xukuumadda beesha kaga maqan uga doono laakiin intiiba wuxuu ku bedeshay balanka bax balantii kaga baxay ummadii la gashay uu kaga baxay xukuumadda la gashay wixii oo dhan balantii ka baxay imika adoo shakhsi baad ku hadlaysaa shakhsina waad eedaynaysaa oo xildhibaan oo aad weliba carabka ku dhufatay inaad idinku doorateen markaa maxaa lagu caddayn karaa sidaan aad sheegayso inaad kulama gasheen oo beeshiina aad wada shirteen oo xildhibaanka aad ka leexanaysaan maanta maxaad ku caddaynaysaa waxaan ku cadaynaynaa shirarkii ugu dambeeyay shirkii shalay aan galnay kii daraad aan galnay intan hawsha socotay ololayaashan ururada ay socdeen baan galnay waxay ahayd shirar laga warhayo magaalada ogta waxay ahayd shirar beesha u dhantaho meelo lagu shiray la garanayo waa shirar qarsoon ma ahayn
go'aamadoodu waa go'aamada maanta halkaan waa ka sheegayo أنا حلبانكم معارض ماذا وكنت أنا قاعد أقول مترو ما أنا بيشنا حقوق الكويت حلبانك أنا معارضة تاس أيالنا ما كان حلبانكم سوى هدو نقضين ما نبنيك وحين ضيع عاية إنك ما نبرين وحفظ حيدون وصامر ولا عبد سينو هاي وحاسد عيبة لي ده كهذا وإمسال سينس أنت سكهذا وسيم كل بلغو لقى هذا الشيء نيو هذا تاس أنا قاعد أتعب يلمينه وهي إمسال كل ما ذا نعبد إلا بدل ما الموضة قدام بيجي عيا دعان isagu muna ka waraynin wuxuu ka qayb galwaa wuu ka warhayay laakiin waa iman waa ka qayb galwaa walaa uu yeeray waxaan loo sheegay baashu inay meel u socoto baashu inay xidhbaankeedii ka sharaxatay xisbiga kulmiye deegaanka ugu qayb galaya loo sheegay waxaan loo sheegay kuwii isagu meelaha kala geeyeen casilay oo waliba telefoonka loogu dhibay rag inay ruqsad dhiibeen